السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. walaalaha qaaliga ah kusoo dhawaada channelkeena. maanta waxaa ka hadlaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo. gabar ka mid ah asxaabta ayaa waxay ila wadaagtay qisadeeda. gabadhan waxay ka cabanaysay walaalaheed. waxay iga sheekaysay inay dhibaatooyin badan u geysteen. waxa ayna tiri walaalnimada iguma qadariyaan, wanaagga aan u sameeyo iguma jeclaadaan. waa dad aad moodo in aniga la ii soo diray. waxay ka shaqaynayaan habeen iyo maalin sidii ay ii baabi'in lahaayeen. waxa ayna tiri horumarka igala diriraan. waxay ka jecel yihiin inuu anigu wax qabsado, inay ayagu wax qabsadaan. xitaa haddaan iska hormariyoon ayagu wax u qabto ma qancaan. waxyaabo aad looga naxay iiga sheegtay inay walaalaheed u geysteen, oo qof damiirkiisa jooga shaki ku beeraysa walaalnimadaas ma sax bay ahayd. in badan waxaa ka mid ahayd su-aalahayga, ma la hubaa inaad wada dhalateen? sababtoo ah qof wuu xumaan karaa, laakiin dadkoo dhan inay dhinac kaa wada maraan shaki baa ka beermaya. sababaha markii aan sheekada si cad uga hadlayn waxaa ka mid ah qiso walba waxay leedahay laba dhinac. mar haddii aanan labadeedii dhinacba hayninna, ani ahaan iguma qurux badna inaan afkayga ka sheego wax aanan caddayn karin. sidaas daraadeed way dhici karaan oo waa macquul gal dhibaatooyin badan oo walaalaha qaar ay kala tabtaan. marka waxaan rabaa inaan uga hadlo sidee qofka walaalihii ama ehelkiisa dhow dad ka mid ah oo dhibaato ku hayo, sidee wanaagsan inuu ula dhaqmo oo dhibtoodana wuu uga badbaadi karaa, xiriirkoodana wuu ku sii wadi karaa. marka adiga iyo walaalaha ama adiga iyo qaraabadaada dad ka mid ah isqabataan oo dhimri, sida ay kula dhaqmayaan haddii aad ula dhaqanto si la mid ah, wax walba way sii xumaanayaan. taasna waxay dhalaysaa in la sii kala fogaado. marka waxaa jira Caaisha xadiis ay soo warisay radiyallahu canha qaalat waxa ay tiri qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam ina allaha rafiiqun yuxibu rifq fii amri kulli. inaad wax u dhimriso waa dhaqan uu ilaahay jecel yahay. asagaa u dabacsan adoomadiisa. cid kasta oo wax walbay qabanaysa deganaansho iyo dhimrin iyo u tanaasulid ku salaysana ilaahay wuu jecel yahay. dhimrinta ama rifqigu waxaa la yidhi shay kasta uu galo wuu qurxiyaa. yacni wax kastood u dhimriso arrintaasi qurux wuu u yeelayaa, xasilooni wuu ku beerayaa, xalkeeda in la helaa fududaanayso. shay kasta oo waxaa la yidhi rifqiga uu ka maqan yahayna wuu fool xumaadaa oo ceeb uu yeeshaa. qof kasta oo rifqigiisa yaraada guuldaradiisaa badato, fursaduu lumiyaa. ilaahay baa wuxuu kuu dooray walaal wanaagsan, markaasaad qiimihiisii garan weyday. waxaad heshay waalid wanaagsan oo markasta ku waaniya, oo kuu carooda, oo kugu qayliya. intaa nacayb aysan ka ahayn ee waxa uu rabaa inaad soo hanuunto, wuxuu rabaa inaad dantaada garato. waxaad haysataa lamaano wanaagsan. haddii aad dareemi weydo inta uu kula joogo qofka miisaanka uu leeyahay, mudnaanta uu ku siiyey, haddii qofkaasi aad dhaliilo u raadiso, marka uu ku dhaafaad dhab u ooyi doontaa. sidaas daraadeed rifqiga waa tooshka qiimaha waxa marka aad haysato ku tusaya. walaalka fiican ilaahay baa kuu dooray. haddii aad daba gasho oo aad la ficiltanto, cadow buu kuu arkay oo waxaa laga yaabaa asagoo nool inuu xiriirka kuu jiro oo go-aan kaa gaaro. ama waaba adduunyee
ay tii Rabbi u maato oo kugu cileeyo nolosha. Walaalnimadu waa in la isku gargaaro, waa in la isjeclaado, waa in la isku naxariisto. Adigu haddaad heer gaartay waa inaad walaalkaa soo jiidaa, soo garab qabataa, wax walbo wanaagsan waa inaad la jeclaataa. Xitaa haddii ayagu ay ku xumeynayaan, adigu rifqiga qaado. Adiga ahaw midka dhimriya, midka xagiisa laga dhiman waaya, midka xarkaha ay goynayaan isku xira. Sida gabadhan hadda ii sheegtay, markii ay ku caayaan oo dadka kale kaaga sheekeeyaan oo waxba nama tarto iyo sidaanay nagu sameysay ay ku dhahaan, adigu dadka ku ammaan. Walaalahayoo kale cid haysata ma laha dheh. Inta badan marka kala fogaadaan ama cuqdada ay soo dhex gasho waa marka uu waalidkoodii geeriyooday. Awal baa la yiri dhaliya wiil tagtay dheeraate. Yacni marba haddii waalidka uu tago waxaa laga wadaa dadka qaraabay noqonayaan ilaa kuwa Ilaahay u naxariistay oo markoodii hore yacni isjacayl ku soo wada koray maahane. Marka waxyaabahaas oo kale waxaad kaga gaashaaman kartaa mar walba adiga wanaag ka sheeg. Adigoo eed ka wadaba yaysan maqlin. Ayagu markii dambe way is ceebsan doonaan. Tan labaad, waxyaabaha ay kugu tabayaan mararka qaar waxaa macquul ah adigoo isleh waad wanaajisay in heerka ayaga ay hadday booskaaga joogi lahaayeen ku istaagi lahaayeen aad weli gaarin. Marka isku day inaad u siyaadiso waxa aad u sameynaysa ixsaanka ah. Dhaqaale ayagoo ku dhibaaya, xiriiri ayagoon ku soo raadinin, ha ka eed sheeganin oo hala doodin markaad la hadlayso idinkoo weligiin wax imayna tarin. Waa erayada inta badan la isticmaalee sida ha ku dhihin. Sababtoo ah marka ayagu waxay ku taraan inaysan haynin baa laga yaabaa. Mararka qaar eedda walaalaha aad saarayso ka leexi. Micnaha u cudurdaar. Waxa aad haysataa laga yaabaa inay kugu maagayaane. Waxaasi inaad wada leedihiin tus. Kuma lihi ayaga ku wareeji. Waxaan ku leeyahay yacni sida aad uga garab qabanayso, sida aad ayaga u soo dhisayso oo aad markaste mustaqbalkooda uga talinayso. Taasay ku fahmi karaan inay waxaaga kula leeyihiin soo gacan qabo. Qodobkan aad baan ugu dheeraanahay sababtoo ah waxaan ogahay waa midka cuqdadaba abuura. Dadka qaar baan waxba isku ogolayn oo jecel mar walba midka sareeya inuu ahaado. Lacala haddaad adigii noqotay ayaga tusi inaad siman tihiin, inaad wax walba oo adigaad haysataa la jeceshahay ayaguna inay yeeshaan iyo wax ka sii badanba. Wuxuu Nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam tahaadu tahabu. Isku hadiyay waad isjeclaanaysaan marka gacanta u badi. Insaankana caado u leh in uu isxasto ayagooba dad iskugu dhow. Oo waxaad ku ogaan kartaa qisooyinka Quraanka ku jira oo tii Nabi Ilaahi Yuusuf alayhi salaam ay ugu horeyso. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ريو أركي يعني وحرن oo ka soo muuqday ma aha waa riyo oo kaliya. Ayaa waxay sabab u noqotay in noloshiisii la baabi'iyo. Weliba walaalo asaga la dhashay ay sidaa u galeen. Taa markaa waxay ku cadeynaysaa dadku inaysan wax isku qoorin. Haba ku dhawaadaan haddii ay doonaan. Waxaad kaga badbaadi kartaa inaad u roonaato. Nabi Yuusuf alayhi salaam markii dambe way soo muteen. Asagiyo yacni madax ah iyo ayagiyo masaakiin ah wuu wanaajiyay. Wanaajinta uu wanaajiyay gadaasheed dhagar ay kula kaceen iyo dhibaato ay ku sameeyeen oo dambe lagama sheekeynin. Yacni dhibti intii hore la yaryaraa markaa wax la istari karana aysan jirin inuu ka fadilan yahayna ay arkeen bay ku bilaabeen. Laakiin markay arkeen asagiyo guuleystay iyo ayagiyo baahan uu soo gacan qabtay wax walba uu sameeyay. Walaalo jiray markaa noqdeen gacantay ogolaadeen. Asagana Ilaahay wuxuu waafajiyay sidii ugu fidnayd oo markay shalaayeen oo xasuusteen wixii ay ku sameeyeen. Qaala laa tathriiba calaykum alyawm. Maanta shalayto korkiina ma ahaanin. Madaxu saartay oo kii ka soo raray meeshii baadiyaha ay jireen magaaladii keenay nolosha u kala kiciyay.
qodobka labaad, sirahaaga ka qarso walaalaha haddii aad aragtay in ay kula ficiltamayaan ama inay ku xasidnimeynayaan oo kale. taa waa mid kale oo aad kaga badbaadi karta dhagartooda. isla qisada Nabi Yuusuf baa kuu sheegaysa aabihii inuu kula dardaarmay in walaalihii uusan ku kalsoonaanin oo wax walba la wadaagin. laakiin mid meesha ku jirta walaaloo dhan ama dadka kuu dhow oo dhan maaha waxa laga hadlayo. waa kuwa aad ka dareentay in ay ka xun yihiin hor u socodkaaga. kuwa unbaad ka qarsanaysaa. sababtoo walaalaha ama xigtadaada hoose inta badan waa dadka horumarkaaga jecel, waa dadka sharaftaada jecel, waa dadka dhibtaada ay dhibayso. marka ha u fahmin in walaalaha ama dadka kuu dhow oo dhan ay cadow kugu yihiin. waa dadka kuu jecel, laakiin marmar bay dhacdaa waxa aan ka hadlayno. waxaa jira xadiis kale oo isagana Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri istaciinu calaa injaahi xawaa'ij bilkitmaan. waxa aad qabsanaysaan si hoose u qabsada oo sirihiina dadka hala wadaagina oo hadafyadiina ha ka sii sheekaynina. fa inna kulla dii nicmatin maxsuud. nimco kasta cadow bay leedahay ama xasad baa jira ka xun. marka is aruuri oo wixii dadka aan laga qarin karin ee banaankaas ku soo dhaco waa gaarkeeda. adigu dadka ha u faanin. dadka qaar baa gacantooda isku dila. wax aan weli qabsoomin baa waxay la wadaagayaan qof laga yaabo inuu ka xun yahay. marka iska ilaali inaad dadka wax walba u sheegto oo aad hadafyadaada oo dhan sheeko ku cabirto sida ay wax noqon doonaan. waxa aad hadda hayso waxyaabaha aad macsan tahay oo dhan lagama hordhaco. waxayba ku arkayaan inaad u faanayso adigooba ayaga ama tala ka rabo amaba inay kugula sii farxaan oo waxa ayaga wixii tale kaga aadan ay ka caawiyaan rabo. dadka adigu aad jeceshahay, ku kalsoon tahay, ku nafisayso ayaa waxaa laga yaabaa sidaaba inaysan kuu arkin oo ay u fahmayaan inaad ayaga ku diganayso, inaad u faanayso. waxaanba dhoola tusaad ayaga niyad jab ugu beeraysa inay yahay bay u qaadanayaan. marka dadka inaad kala baratana waa muhiim. waxaaga inaad si tartiiba u wadato oo aad hadafyadaada iyo nimcooyinka aad haysato inta aad dabooli karta aad daboosho. ayagana danbaa kuugu jirto. cid kasta oo dareemaysa dadka kuwii ugu dhowaa in ay ula dhaqmayaan si aysan jeclaysan ayuu muuqaalkan ku socdaa. fariinta koowaadna waa inaad isdejiso. waa inaad u fiirsataa maxay kugu haystaan ehelkaaga. ma dhib ay kaa tabanayaan wada xallin baa jira. marka hore baaritaan bay kaaga baahan tahay waxa ay kugu haystaan dadkaas kuu dhow ee walaalaha ama waalidkaaga aad isfahmi la'dihiin ama qofka aad wada joogtaan ama ilmahaagii kugu madax adkaaday dabagal. soo ogow meesha ay wax ka bilowdeen iyo halka ay wax iska qaban la'yihiin. taa markaad ka soo baxdo haddii ay hawshii xalismi weydo oo adigoon waxba u geysan oo dhankaaga aan wax lagugu eeday yaalin ay iska kaamaagan yihiin, wanaaji oo sidaa ku soco. noloshan ayadaaba gaaban oo qof kasta uu mar iska baxayaaye iskaga dulqaado oo hala ficiltamin. iskana jir adigoon ayaga dhibkooda ku maqnayn, haddana adiga badqabkaaga ilaasho oo sirahaaga qarso. laakiin ha jarin, waxaaga ha u diidin. booqo haddaad kala fog tihiin, wac mar walba, xaal wareyso. taa waxay keenaysaa in ay dib u dhisto xiriirkiinii, walaalnimadiinii, jacaylkiinina wuu soo noqon doonaa. xitaa hadduu soo wada noqon waayo, dadka oo dhan isku fikir ma aha. qaar baa kula safan doona. dadka waxaa lagu kasbadaa dhaqan wanaaga. qodobka ugu dambeeya, haddii aad walaala tihiin oo waalidkii uusan joogin
waxaa la samaystaa qof reerka udub dhaxaad u noqdo oo dadka isku wado oo kala canaanto. Qofka reerka curadka u ah baa mas'uuliyadaas ku fiican inuu qaato. Haddii uu kaa booskiisa ceshan waaya, qof kasta oo dadkaas mid kasta siduu yahay ku fahmi karaa inay u wada siman yihiin oo arka kan cida u yar, ka u weyn, ka waxaysta, ka baahan, ka maqan, ka jooga. Ay xilka loo dhiibtaa ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado, inta badanna gabdhaha ku fiican. Taasaa inta badan walaalaha jacaylkooda iyo iska warqabkooda korisa. Family kasta wuxuu leeyahay qof waalidkooda jooga ama waalidkii oo dhintay isku dayay inuu dadka isku soo jiido oo wanaag ka taliyo oo markasta uu wax raadiyo. Qofkaas oo kale in lala ficiltamo oo la ximiyo oo lala tartamo ma wanaagsan. Waa loo daayaa booska hadduu mar qaato, waa looga dambeeyaa, waa lagu ixtiraamaa, waa lagu sii dhiirigeliyaa. Laakiin qof kasta hadduu dhaho ma aniga la dhageysto, aniga reerka isku wadaayo, aniga sidaas iri, waxaasoo kale waxay noqonaysaa wax lagu sii kala fogaado. Waxa wanaagsan ku raac, waxa khaldanna kala taliyo, waxaad ku tiraahdaa ama sidaas kaga fiicnaan lahayd. Muuqaalkeennii intaas uu ku egyahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqaan ugu sugo.